السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته هويدا inaga dhageysanaysaa waa barnaamijkan galabnimo hadiyo gooraale ka dhageysataan Reggae Production TV YouTube wararkayga galabnimona waxa ugu doorka roon ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada London iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ka badbaaday qaraxyo lagu xiray wiil 13 jir Soomaali ah oo uu geeriyooday cudurka coronavirus iyo qoyskiisa oo ka hadlay ciidamada madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed oo la wareegay amniga fiqi oo la filayo in maanta loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo laga cafiyay lacagihii deymaha qaar ka Soomaaliya oo laga cafiyay lacag ka badan 1 bilyan oo dollar askar ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho xog wada hadallo Nairobi uga socda Axmed Madoobe Cabdirashiid Xidig iyo Sayraar wararka dibadda waxa uu doorka roon Saudi Arabia oo war cusub ka soo saartay arrimaha xajka iyo umrada ee sanadkan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ciidamada militariga ee ka howlgala degmada Janaale ay ka hortageen weeraro qaraxyo ah ay harakada al-shabaab ku weerareen kolaya uu la socday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee Saraakiil Guuto Odawa Yuusuf Raage war ka soo baxaya taliska xoogga dalka ayaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu soo xiray 2 neef oo lo ah isla markaana la doonayay in lagu dhibaateeyo askarta dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale qoraalkan ayaa waxa lagu sheegay in weerarkaasi la damacsanaa in laga fuliyo degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose balse la fashiliyay sida ay inoo sheegeen ilo deegaanka ah qaraxyada ayaa dhacay shalay galinkii dambe balse aysan wax khasaare geysan dhinaca kale harakada al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxa ay baahisay in uu si dirqi ah uga badbaaday taliyaha ciidamada guud ee Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidamada guud ee xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage oo ku sugan halkaasi Janaale ayaa wiil 13 jir Soomaali oo ku nool magaalada London caasimadda dalka Ingiriiska ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus oo hadda ku sii faafaya meelo badan oo caalamka ka mid ah Ismaaciil Maxamed Abduhaab oo ah 13 jir ahaa horeyna aan u qabin cudurro kale ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus waxaana wiilka markii lagu arkay calaamadaha cudurkan la geeyay isbitaal halkaas u dhow oo markii dambe ku geeriyooday qoyska wiilka yar oo ku nool magaalada London gaar ahaan xaafadda Brixton ayaa aad uga naxay geerida wiilkooda qoyska ayayna u suura gelin in ay arkaan wiilkooda saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa Soomaali badan oo una badan dad waaweyn ama waayeelo ah ayaa dalka Ingiriiska ugu geeriyooday caabuqa coronavirus waxaana wiilka yar ee Soomaaliga ah noqday qofkii ugu yaraa ee gudaha dalka Ingiriiska ugu geeriyooday cudurka coronavirus dalka Ingiriiska oo ku sii badanaya cudurka coronavirus ayaa la sheegayaa in shalay oo kaliya ay ugu geeriyoodeen cudurkaasi dad ka badan 380 qofood waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin ugu geeriyooday gudaha dalka Ingiriiska musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka ee Cali Saciid Fiqi ayaa waxa lagu wadaa in maanta magaalada Baydhabo loogu doorto gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Saciid Fiqi ayaa 19 bishan lagu dhaxarkay liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo uu ka mid noqday musharaxiinta u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka ila wareedle lagu kalsoon ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qancisay in uu iskaga soo tago magaalada Brussels ee xarunta Belgiumka halkaas oo uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub u fadhiya marka uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed si uu uga tartamo ugana faa'iideysto kursiga ugu sareeya ee baarlamaanka musharax Cali Saciid Fiqi ayaa maalintii Axadii soo gaaray magaalada Baydhabo markii uu ka soo gudbay magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Shaadguduud Airport ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa la wareegay in ay sugaan amnigiisa Cali Saciid Fiqi oo dhawaan iska saacasilay danjilaha Soomaaliya ee midowga Yurub ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in musharaxa la dajiyay xarunta wasaaradda amniga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dacalka ku haysa madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxaana halkii la dajiyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaare markii loo doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya 19 bishii December ee sanadkii 2018 ilaa 5 xildhibaan ayaa u sharaxan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad xildhibaanada
xildhibaan cali siciid fiqi iyo xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nuur ayaa isku soo sharaxay jagada gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo xildhibaanad aamina isaaq maxamed, xildhibaan maxamed nuur maxamed u taagan yihiin jagada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed, halka xildhibaanad shamso maxamed yirow ay u taagan tahay jagada gudoomiye ku-xigeenka labaad. Haddii aynan wax mucjiso ah dhicin, musharax cali siciid fiqi waxa uu maanta noqon doonaa gudoomiyaha baarlamaanka. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhow ciidamada ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya lagula eegtay agagaarka isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday gaari cabdibila ah oo ku socdaalayay wadadaasi, siday inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal. Inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaasi, oo 2 ka mid ah ay ahaayeen askartii la socotay gaariga cabdibilaha, halka qofka kalena uu ahaa qof wade bajaajle ahaa. Sidoo kale wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in qaraxa kadib ciidamada ay fureen rasaas, sidaas ayay soo warinayaan dadka aan la hadalnay. Xaaladda ayaa hadda degan, waxaa dib u furmay dhaqdhaqaaqa wadada hormarta isbitaalka Digfaar oo ay si aad ah u isticmaalaan dadweynaha Muqdisho. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarka loo adeegsaday qarax miino. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa bilihii lasoo dhaafay ahaa mid degan, waxaana aad u yaraa weerarada qaraxa ah ee ka dhici jiray magaalada caasimadda Muqdisho. Wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo xubnaha mucaaradka ku ah maamulkaasi ee golaha isbedel-doonka Jubbaland ayaa wadahadallo uga socda magaalada Nairobi. Sida wararku ay sheegeen, wadahadalladan ayaa u dhexeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, Cabdirashiid Xidig, Cabdinaasir Sayraar iyo Sheekh Daahir oo ka mid ah xubnaha ugu weyn ee mucaaradka ku ah. Xog ay heshay warbaahinta Reggae Production TV YouTube ayaa sheegaysa in 2 maalmood ee lasoo dhaafay dhinacyada yeesheen wadahadallo bilow u ahaa xalka gaarista khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland. Wararka ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay isku soo dhawaansho bilow ah muujiyeen, iyadoo la isku fahmay in la yeesho lana wada shaqeeyo. Sidoo kale waxaa la filayaa in wadahadallada ay sii socdaan ilaa ugu dambeyntii laga gaaro heshiis waara oo rasmi ah, waxaana la saadaalinayaa in ugu dambeyn toddobaadka soo socda ay dhici karto in warmurtiyeed laga soo saaro wadahadallada haddii qodobada dhiman ee wadahadalka ka leeyihiin la isku afgarto. Bishii Agost ee sanadkii lasoo dhaafay, dib u doorashadii Axmed Madoobe ayaa mucaaradka ugu weyn ee uu gudaha kala kulmay waxaa ahaayeen Cabdirashiid Xidig, Cabdinaasir Sayraar, kuwaas oo iyana iskood isugu magacaabay in loo doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland. Dadka oo darso siyaasadda ayaa aaminsan in haddii Axmed Madoobe xalliyo khilaafka gudaha ee maamulkaasi ay meesha ka bixi karto isku dayga dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku yeelan karo in ay soo dhex marto xubnaha mucaaradka ee